السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دولة أنا والله نهاي جيبوتي أي قاضي تلابة دق وحين إردها سقول فتي حفيز ير أو maamulka magaalada Hargeysa ugu yaalay dalkaasi Djibouti hadda waxa badan ee macluumaad arintan ku saabsan ayaa halkan kula wadaagaya sababta rasmiga ah ee ka dambeysay iyo faahfaahin badan oo laga qariyay soo dhaw muuqaalka sii gudbi leegare sheegare oo la sii wadaag asxaabtaada sida laga baahiyay warbaahinada kala duwan ee dalka Djibouti iyo TV-giisa waxa qoraal soo saaray dawladda Djibouti waxaana saacada loo qabtay ama la xiray guud ahaanba xafiis yar oo maamulka magaalada Hargeysa ee Soomaaliya oo ku lahaa gudaha dalka Djibouti kaas oo xiriir lagu tilmaamay in uu la lahaa dalka Djibouti laakiin la ogaaday in qorshooyin kale oo halis ah uu ka waday isla gudaha dalka Djibouti hadda waxa isweydiinaysaa maxay yihiin qorshooyinka iyo talaabooyinka halista ah muxuu soo qoonsaday dawladda Djibouti ama ay qoonsatay iyada oo shacabka Soomaaliyeed ay rabaan qarannimo dawladda Djibouti ay qarannimo ka shaqeynayso isla markaana iyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay iskaashanayaan ayaa hadda waxa xogo la helayo oo xasaasi ay tilmaamayaan in la ogaaday in xafiis laba qol ah oo ku yaalay gudaha dalka Djibouti oo xiriir dadweyne iyo mid dibadda lagu tilmaamay in uu ahaa maamulka fadhigiisu uu yahay Hargeysa ee Soomaaliya in uu ka shaqeynayo arrimo markii hore aan loogu talagalin isla markaana dawladda Djibouti ay qaaday tallaabo degdeg ah iyadoo ka fikiraysa masiirkeeda iyo masiirka shacabka Soomaaliyeed yar iyo weyn taas oo keentay in si degdeg ah xafiiskaasi loo xiro si rasmi ah looma sheegin qodobada khatarta ah oo ay ku hoolanayeen laakiin waa la maldahay warka oo waxa la sheegay in irdaha la isugu dhuftay kadibna la yiray waa inaad ka baxdaan gudaha dalka Djibouti waliba saacado waxaana taas ay keentay in si degdeg ah ay ku kala cararaan raggii halkaasi markii hore joogay oo la tilmaamay in wax xuquuq ah aysan qaadan jirin xitaa halkaasi ay ku dhibaateysnaayeen oo ay joogeen mar yaa idinka saaro halkan balse maanta dalka Djibouti iyo madaxdeeda ay go'aan ku qaateen in guud ahaanba xafiiskoodii la xiro dalka Djibouti laga saaro haddaba adiga haddii aan ku weydiiyo sidee ayaad u aragtaa talaabadan dawladda Djibouti ay qaaday ee xafiiskaasi lagu xiray ma talaabo wanaagsan mise mid aan wanaagsaneyn oo aad u aragto labadaba qaybta hoose noogu reeb aragtidaada waxaana waayihii dambe ama maalmihii dambe sii kordhayay kacdoonka ka dhanka ah maamul goboleedka Somaliland ee Soomaaliya taas oo loo arko in ay mas'uuliyiinteeda yihiin kuwa qaran dumis ah oo qaranka Soomaaliya in ay dumiyaan xilli kasta isku hoola iyaga oo sheega in dawladdii hore ee Soomaaliya ay duqeysay laakiin dhagta lagu dhaqeeyay in iyaguba ay xasuuq ka geysteen laas ahaanood iyo meel kale. Salaam alaykum.